بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ولا لها مسلمين تآية صوماليات وإذن سلام يا ميل كستاء الدنيا الدعالية كجوكتان ولا ليال صاد وقور قبطان الدون كوحا آفيي أو سامين آدي وين أو رقاله يوح برشو iyo diin iyo bulsho ku sameeyay cudurkan dilaaga ah ee maalmahan adduunka qabsaday. walaalayaal, saameynta dadka uu ku saameeyay aad iyo aad ayay u kala duwan tahay. waxaan rabaa hal dhinac inaan anigu tarkiisiyo oo aan idinka tuso oo aad ila aragtaan oo ila fiirisaan. walaalayaal, qayladhaan ayaan wadaa. qayladhaantaas aan wadaayna waxa ay ku saabsan tahay qoys ka mid ah qoysaska uu sida adag u saameeyey cudurkani dhinaca dhaqaalaha. qoyskaasi walaalayaal waxa uu ku tiirsanaa oo uu noloshiisa uu ka dabarayay oo uu dhaqaalihiisu ku tiirsanaa waxyaalaha yaryar ee rusuumaadka ah ee fiiga ah ee inagu aynu bixin jirnay. qoyskaasina waa qoyska ilaahay. qoyska ilaahay ayaan maanta u wadaa qayladhaan oon rabaa inaad mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta oo aad joogtaan aad ila eegtaan. walaalayaal, qoyskaas aan ku tilmaamay qoyska ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qoyska macallimiinta qur'aanka ee Soomaaliyeed. walaalayaal, macallimiintu qur'aanku waxa ay ka dabarayeen noloshooda waxyaalaha yaryar ee inagu aynu bixinno ee markii ardada la isu gegeeyo macallimiintu ay qaybsan jireen. maadaama dugsiyadii la xidhay, malcaamadihii qur'aanku la istaajiyey, isku imaatinkii la diiday oo duruufahana adiga ay naga soo gudboonaadeen, macallimiintii meel kale u dhaqaaqaan ma hayaan. marka walaalayaal, macallinkii qur'aanka ee aynu markii horeeto inaga nagu tiirsanaa soo ma habboona markaa inaynu haddana aynu ka warhayno. soo ma habboona haddii $10 aynu ka bixin jirnay ilmaheenna, maadaama ilmihii hadda aysan dhiganin, macallinkiina uu diyaar yahay si ugu dhigana uusan haynin, inta kaliya ee uu noloshiisa ka maarayn jirina ay ahayd intaas $10 ama 1,000 shilin ee Kenya. hadda Kenyaan joogaaye inaan bixinaayo walaalayaal oo soo idin lama gudboona, si macallinkii noloshiisii aynan u kala dhantaalmin, ilmihii yaryaraa, xaasaskii, qaraabadii, duruufihii kale ee caa'iliga ahaa ee ku xeeraa ee mas-uul uu ka ahaa macallinku, si aysan u dayacmin in aynu arrintaasi ka qayb qaadanay. soo ma habboona oo aynu bartii aynu kasii wadno bixintii rusuumkii yaraa aan halkii kasii wadno. walaalayaal, waxaan u leeyahay qoyska ilaahay, waxaan u leeyahay waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga tilmaamay oo yidhaahday ahlulqur'aanku waa ehelka ama qoyska rabbi weeyaan ee khaaska ah. marka qoyskii rabbi haddii lagaga soo calaacalo, qoyskii ilaahay lagaga soo calaacalo oo lagu yidhaahdo xaaladiisu way daran tahay, jawaab inaad ka bixisahay soo ma habboona. xaqiiqatan waxaan leeyahay waa sidaas. marka dhammaan walaalaha muslimiinta ah, bisha ramadaanna waa soo dhowdahay, fooday nagu soo haysaa. macallimiinta qur-aanka yaan la moogaanin. walaalayaal, wax alla wixii aad macallimiinta siin jirteen ha ka jarina. ilaahay subxaanahu wa tacaala suusan idinka jarin idinkana. waa dadkaas aan shaqo kala haynin diinta ilaahay iyo kalaamka rabbi subxaanahu wa tacaala u taagan baridiisa. waa dadka ugu khayrka badan binasi xadiidi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah. dadka khayrkaas uu nabigu u qiray ee waxyiga uu ku sheegay dadkii nagu khayrka badnaa in aynu dayacnaay. haddee dunuubtii waaweynadii horey aan ugu jirnay unbaan halkeedii kasii wadaynaa. ilaahayna subxaanahu wa tacala waxaan weydiisanayaa
in uu waxa aan bixinno ee macallimiinta aynu siino uu naga maaragtay awdo aafooyinka socda ilaahay subxaanahu watacaala inuu dhinac nooga mariyo. walaalayaal, ilaahay baan idinku dhaariyey, wixii macallinka aad siin jirteen ha ka gaabinina oo qayb maaragtay waxaad ka noqotaan kuwa garab istaagay macallimiinta qur-aanka. macallimiinta qur-aanka ha loo gurmado, macallimiinta qur-aanka maaragtay garab ha loo noqdo. waqtigan culus iyo duruufahan adag garab iyo maaragtay gacan fiican macallimiinta ha loo noqdo. jazaakum allahu khayran. aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa markaad fariinta maqashaan in aad maaragtay ila qaadataan oo aad maaragtay la tacaatuftaan oo macallimiinta qur-aanka walaalayaal aynan marna dayicin, ilaahay si uusan noo dayicin. haddii aynu macallimiinta maaragtay aynu kor u qaadno, ilaahayna kor buu noo qaadi. maxaa yeelay sababta keliya aan iyaga kor ugu qaadaynaay waa kalaamkiisa weeyaan. kalaamkiisa haddaynu cizayno oon kor u qaadnana, ilaahay isagana kor buu noo qaaday, wuuna cizaynayaa. cizo oo dhanna rabbi subxaanahu watacaala isaga ayaa iska leh. walilaahi alcizatu walirasuulih walilmu'miniin. marka walaalayaal, fariintaas ayaan rabay inaan la wadaago. jazaakum allahu khayran. arrintaasi dhammaantiin isgaadhsiiya oo macallinka markaad fariinta ku soo gaadho, macallinkii wac waxay u diri jirtay iyo sidaad u siin jirtay halkii uga sii wad. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.